السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaantiinba walaalahayga Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan aad iyo aad baad u salaamantihiin. magacaygu waa Cusmaan, waxaan ku noolahay wadanka Canada, gaar ahaan gobolka Alberta. masha Allah, waxaan ahay business owner ama se qof ganacsi ku dhexle company-gan weyn ee caalamiga ah ee Forever Living Product Company. waxaan ku faraxsanaynaa adigana warbixin ama xog ku saabsan company-gan iyo sidaad uga shaqaysanayso aan ku siiyo insha Allah taala daqiiqadaha kooban biidnillahi kariim ee soo socda. haddaba company-gan waxa uu leeyahay halhayskaas oo ah runtii halhays weyn oo ah company-gan inuu yahay meesha dadka caadiga ah ee anigoo kale ay ka sameeyaan natiijooyin aan inaba caadi ahayn. masha Allah, yacni waxa weeyaan qof kasta waa meeshuu ka noqon karo waxa uu doonayo, meelaad si fudud aad ganacsi ku bilaabi karto, noloshaadana aad ku bedeli karto, dad badanna ay hortaa uga faa'iidaysteen. masha Allah, company-gan sidan screen-ka kaaga muuqataba waxa uu caan ku yahay geedka la yiraahdo aloe vera ama dacarta. geedkaas oo runtii waxa weeyaan geed mucjiso ah oo waxa weeyaan faa'iidooyin fara badan leh, ilaa iyo qarniyo fara badanna lasoo isticmaali jiray oo ambiyada iyo dadkii hore waxay isku daaweyn jireen ayuu ka mid ahaa. haddaba company-gani muddo dheer waxa uu yahay geed beeraha, yacni shirkadda ugu weyn ee beerta geedkani isla markaana soo saarta ee sii iibisa. masha Allah, taariikh ahaan haddii aynu dul marno, yacni muxuu yahay company-gani waxa weeyaan waa company weyn oo caalami ah oo wadano fara badan ka shaqeeya, ilaa 160 wadan in ka badan ayaa maanta lagu qiyaasaa wadanada uu ka shaqeynayo. masha Allah, company-gani waxa uu leeyahay 44 sano oo koritaan ah, isla markaana waxa uu qaabilsan yahay waxyaabaha caafimaadka iyo qurxinta la xiriidha ee si dabiici ah qofka, yacni caafimaadkiisa iyo qurxintiisa uu ku daryeelayo intaba. company-gani waxa uu caan ku yahay oo alaabtiisa inta ugu badan ku salaysan tahay ama se ay ka samaysan tahay oo kamid ah geedkan oo kaliya ma isticmaalo, laakiin waxyaabo fara badan buu isticmaalaa company-geenu. masha Allah, waxa uu laakiin company-ga u yahay geedkan aloe vera shay kamid ah shayada ugu muhiimsan ee uu isticmaalo, waana ingredient-ga ama shayga ugu horeeya ee shay marka uu sameynayo ama product uu soo saarayo uu ku daro. geedkani haddaba muxuu yahay? geedkani waa geedka aloe vera. wuxuu u fiican yahay ama se faa'iidooyin fara badan u leeyahay caafimaadka gudaha, yacni inside-kaaga iyo outside-kaaga labadaba. masha Allah, caafimaadkaaga gudaha waxa uu leeyahay faa'iidooyin fara badan. dheefshiidka difaacaaga ayuu kor u qaadayaa, waxaana uu ka caawinayaa nafaqada jirkaagu u baahan yahay in ay gasho. masha Allah, yacni cuntada aad cunayso waxa weeye wax laga yaabaa cunto wanaagsan inaad cunto, laakiin aanad garanin cuntadaasi aad qaadanayso intee in leeg ayaa nafaqa ahaan jirkaagii gashay, inaanad garanayn baa suuragala. marka product-gan aloe vera waxa uu siinaya jirkaaga power, wixii nafaqa leh uu ku nuugo ayuu siinaya. sida awgeed caafimaadkeena aad buu laga maarmaan ugu yahay. sidoo kale walaalayaal, dibadda marka maqaarkeena waxa uu ku sameeyaa moisturize, yacni wuxuu ka biyaa qalaylka ayuu ka biyaa. sidoo kalena qofku ma garanaysaa skinkiisa conditioning buu ku sameeyaayo aad iyo aad buu skinka ugu fiican yahay ama maqaarka ugu wanaagsan yahay. meelo badan oo jirka ka midana waa loo isticmaalaa. walaalayaal, company-gan muxuu kaga duwaya daba company-yada kale? maxaad ku dooranaysaa company-gan? waxaad ku dooranaysaa waxa weeyaan company-ga ugu weyn ee geedkan aloe vera soo saara, isla markaana suuq geeya adduunka oo dhan caan buu ku yahay. waxa aad ku dooranaysaa company-gan qaabka uu soo saarayo ama se uu beeranayo ah qaab casriyeysan oo ma garanaysa company-gani tiknoolajiyadii ugu dambeysay oo isticmaalayo, isla markaana gacanta lagu guro alaabta iyo geedaha iyo wax walba. loomana isticmaalo biraha iyo waxa weeye waxyaabaha chemicalska ah looma isticmaalo marka la goynayo beeraha. marka la goynayo sababta company-ga magaciisaba la yiraahdaa Forever Living Product Company, oo macnaheedu tahay company-ga soo saara wax soo saar dabiici ah oo tayo leh. masha Allah, haddaba waxaad ku dooranaysaa company-gan alaabtiisu waa ammaan, waa dabiici, waana natural, wax dhibaatana ma laha.
waxaad ku dooranaysaa waxuu leeyahay aqoon-yahano waaweyn oo iyagu shaqadooda ay tahay alaab wanaagsan ay soo saaraan. waxaad ku dooranaysaa shahaadooyinkan oo ah shahaadooyinka uu kumbanigeenu haysto. hadday noqonayso tan iminka aad arkayso waxa weeyaan Muslim Certificate calaamada emta. sidoo kale waxa uu ka mid yahay ururka caalamiga ah ee Direct Association layda. maasha Allah. kumbanigani waxa uu ku hoos shaqeeyaa wadano maanta 160 wadan gaadhaya, waxaana ka shaqeeya dad gaadhay ilaa 10 milyan ayaa ka shaqeeya. wadankeeniina maanta waxa weeyaan dhalinyaro fara badan iyo dad Soomaaliyeed oo fara badan ayaa ka faa'iideysta oo ka shaqeysta. Soomaali fara badan oo qurbaha joogta runtii iyaguna waxay ka qaataan kumbanigan kaalin weyn. hadday Mareykan joogaan ama Canada, waqooyiga America, Europe, Africa, meel walba waxa weeyaan kumbanigan dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa runtii u arkay inuu yahay kumbani dhisaya mustaqbalkooga kana faa'iideystay. adigana waa fursad ku furan insha Allah. sidoo kale waxa wadankeeni magaalo kasta waxa weeyaan dad fara badan oo Soomaaliyeed oo ka faa'iideystay jira. haddaba kumbanigan sidee baa looga shaqeystaa, maxaase uu qabanaya? kumbanigani waxa weeyaan wax soo saar fara badan buu leeyahay. wax soo saarka uu leeyahay waxa kamid ah qaybaha caafimaadka. maasha Allah. qaybaha caafimaadka iyo sidoo kale waxa kamid ah qaybta qurxinta. waxa kaloo kamid ah qaybaha daryeelka shakhsiga oo qof walba u baahan yahay. waxa kaloo kamid ah qaybta maareynta miisaanka. maasha Allah. yani kumbanigan wuxuu soo saaraa alaabo aynu runtii aad iyo aad ugu wada baahannahay oo qof kasto inaga midna u baahan yahay. qaybta caafimaadka haddii aynu soo qaadano, kumbanigani waxa uu soo saaraa qaybta ciladaha caloosha oo kala xalisa. maasha Allah. qaybaha waxa weeyaan sida gaaska, babaasiirta, infectionka, kaadi mareenka ku dhaca, hormooniska oo kale alaabo u fiican. maasha Allah. alaabo kala duwan buu kumbaniga soo saaraya. xagga raganimada kale qaar hamad oo kale kordhinayo, fiitamiina oo supplementiya oo haba yaraatee wax side effect aan lahayn, la qabsina aan lahayn, oo maasha Allah caafimaadkaaga gudaha ku hagaajinaya. waxa kale oo qabanaya laf xanuun haddaad ka cabanayso waxa weeyaan muruqyo xanuun, haddii aad ka cabanayso macaan ama dhiig kar ka cabanayso ama cholesterolkaaga hayaad ka cabanayso, kulli kumbanigan uu ka caawinaya. qaybta indhaha, fiitamiinada indhaha loogu talagalay buu hayaa, kuwa ciyaalku hayaa, macdano qaaliya ayuu hayaa. maasha Allah. vitamin C ayuu hayaa. marka alaabtan caafimaadku waa alaab aad iyo aad u badan weeye. qaybta labaad ee kumbanigan uu soo saaro waa qaybaha wejiga loo isticmaalo. hadday noqonayso finanka kuwa ka caawinaya, hadday noqonayso haarta kuwa ka caawinaya, hadday noqonayso gudguduudka ama cascasaanka kuwa ka caawinaya. waxyaabahan soo sheegnay oo waxyaabo baahiyaadkoogu aad u badan tahay weeyi oo ma garanaysaay dad fara badan oo Soomaaliyeed ay had iyo jeer ka cawdaan. waxa kale oo kamid ah qaybaha xagga yani gabowga ama duqnimada, alaabo waxa weeyaan dadka anti aging la yiraahdo laga hortago oo ma garanaysaay wajigaaga quruxdiisii ama wajiga haduu duuduumay oo kale ama isbedel ku dhacay ama yani alaabo ka caawinaya jira oo maasha Allah si process yani si dabiici oo natural wajigaaga iyo jirkaaga uu dib isku cusboonaysiinayo muddo yar oo gaaban gudaheed. qaybta kale waa maqaarka, waxyaabihii aad gareemyadii aad maqaarkaaga ama jirkaaga u isticmaali lahayd. maasha Allah ayuu kumbanigu soo saaraa. waxa kale oo kumbanigu soo saaraa qaybaha daryeelka shakhsiga oo iyaguna ah qayb aad iyo aad u ballaaran oo kamid tahay daawadii ilkaha. maasha Allah. oo faa'iidooyin fara badan leh. qaybtii timaha. maasha Allah. timaha daadanaya, kuwa gogoaya ama se jajabaya kulli waa alaabo fiican. saabuunihii meesha kama maqna, malabkii meesha kama maqna. alaabo fara badan ayuu kumbanigani ku hayaa. qaybtii miisaan dhimista iyo qaybtii miisaan kordhintu iyaguna waa ku diyaar. haddaba sidee baad kumbanigan uga shaqaysanaysaa? kumbanigan waxaad uga shaqaysan doontaa insha Allahu tacaala haddii Ilaahay raali ka noqdo laba qaab. qaabka ugu horeeya waxa weeyaan inaad ganacsigani aad adigu ku hesho jumlad ahaan, kadibna aad dhisto ganacsi aad sii tafaariiqaynaysa alaabta kumbanigan aad la wadaagayso. maasha Allah. kulli alaabtan aan soo sheegnay alaaba adiga iyo ehelkaaga iyo dadka kale aad garanaysaaba wada baahan wey. marka waad la sii wadaagaysaa asxaabtaada. maasha Allah. marka waxaad dhisi doontaa ma garanaysaa discount ayaa lagu samayn doonaa alaabta kumbaniga, kadibna waxaad ku siibin doontaa qiimaha kumbanigu uu ku iibinayo. maasha Allah tabaarakallah. shay kasta marka aad iibisana waxa ku saarmi doonta faa'iido. maasha Allah. haddaba marka ugu horeysay kumbaniga aad ku soo biirto waxa aad yeelan doontaa isla markaaba marka kumbaniga laga diiwaangeliyo waxa lagu samayn doonaa ID number. isdiiwaangelintuna waa lacag la'aan. isla markaaba waxa lagu siin doonaa qiimo dhibis 5% ah.
ما شاء الله boqolkiiba 5 ayaa lagu siin doonaa kadib company-gu wuxuu leeyahay lacag isaga u gaara oo ma garanaysaa iibka company-ga lagu cabiro ayuu leeyahay marka lacagta wadanka doonto joog yani hadaad Mareykan joogto iyo hadaad joogto Japan iyo hadaad joogto adduunka meesha doonto ka joog lacag CC leedahay baa jirta marka company-ga marka boqolkiiba 5 aad hesho company-gu wuxuu ku leeyahay adeeg dhan 2 CC samee CC-gaas waa lacag weey waa pointi waa dhibco laba dhibcood oo alaaba iibsad uu leeyahay marka halkii dhibic markaad maanta xaruntii wadankeena aad ka iibsanayso ama halkii CC wuxuu dhigmaa $520 buu dhigmaa ma sha Allah marka waxaan ka wada $260 buu dhigmaa labadii CC-na waxay noqonayaan $520 marka labada CC macnaheedu waxa weeyaan markaad alaab $520 ama laba CC aad company-ga ka iibsato alaabtaas oo dib aad u siibin doonto macnaheedu waxa weeye inaad heli doonto qiimo dhibis 30% ah baad helaysaa ma sha Allah waxaana gaaraysaa markaad darajadii ugu horeysay company-ga waxaad hadda kadib maadaama alaab $520 aad company-ga ka iibsatay hadda kadib waxaad heli doontaa qiimo dhimistii weyneyd oo boqolkiiba 5 waad ka soo gudbaysaa waxaad u soo gudbaysaa boqolkiiba 30 baad u soo gudbaysaa haddii aad markaa noqoto qof shaqeeya oo bisha tusaale ahaan kaba soo qaad hadda September 2022 baan ku jirnaa haddii aad waxa weeyaan active noqoto bishaasi oo qof shaqeynay noqotana alaab aad badan aad company ka iibsato lacag buu kuu soo celin doonaa oo ma sha Allah yani active wax leeyahay baa jira company-ga dhexdiisa insha Allah ta'ala wad baran doonto haddii aad markaa active noqoto wuxuu kuu soo celin doonaa lacag boqolkiiba 5 haddii aanad active noqonna oo alaab yar oo kooban iibsatana boqolkiiba 30 discount oo ah lacag aad u fara badan ayaa alaabta markaad sii iibiso hadda kadib kuu saarmi doonta markaan ku yar celiyo ugu horreyn waa isdiiwaan gelin boqolkiiba 5 discount lagu sameyn kadib company wuxuu ku leeyahay darajada ugu horeysa buuxisi aad discount fiican u hesho oo boqolkiiba 30 boqolkiiba 30 kaas hadda kadib waa alaabta waad saaran doonta markaad sii iibinayso waa faa'iidadaadii weey sidoo kale company-ga markaad ganacsigaaga kor u qaado ee aad dadaasho waxaad yeelan doontaa discount ka weyn oo discount-kii labaad ayaad u gudbi doontaa waxaanu noqon doonaa boqolkiiba 38 darajada aad company-ga ka noqon doontana magaceega waxa la oran doonaa supervisor ma sha Allah kadib darajada saddexaad ee company-ga ayaad u gudbi doontaa oo adeega company-ga aad ka iibsanayso ayaad ugu gudbi doontaa insha Allah ta'ala darajada waxaad ku gaari doontaa iyadana boqolkiiba 43 bay alaabtu ku noqonaysa ma sha Allah kadib waxaad noqon doontaa company-ga manager oo ah darajada ugu dambaysa ee qiimo dhimis lagu helo waana boqolkiiba 48 ayay ku noqon doontaa processka iyo nidaamkaas waxaad u mari doontaa insha Allah ta'ala inaad mataqaanaayay discount-ka alaabta aad hesho oo aad uga faa'iideysato marka company-ga dhinac kamida waxaad uga faa'iideysanaysaa alaabtan inaad adigu jumladahan ku hesho siina tafaariiqayso ma sha Allah sidoo kale company-ga waxa aad uga faa'iideysan doontaa nidaam kale oo isaguna ah inaad fursadan dad kale la wadaagto la share gareyso insha Allah oo dad kale iyaguna alaabtan ay si tafaariiqayaan hadaba shaqadan aad qabanayso maxay tahay waxa laga maarmaan alaabta company-ga inaad isticmaasho si aad faa'iidadeeda u aragto laga maarmaan hadii aad finan wajiga ku leedahay hadii miisaankaagu weyn yahay hadii aad caloosho kale ka cabanayso hadii yani waxa weeyaan gaas ku hayo qaybaha taranka dadka cabanayso adigu naftaada kow ka bilow oo isticmaal kadibna waxa weeyaan alaabaha marka isticmaasho isticmaalkii wixii ka soo baxay natiijadii ayaa dadka kale aad la wadaagi doonta insha Allah macaamiil ayaa markaa kuu samaysmi doonta hadda kadib iyaguna alaabtii isticmaala bil walba alaabtan ka adeegto isticmaala 20 ilaa 30 macaamiil haddaad hesho wayba kugu filan tahay 20 qoys oo alaabtii ka isticmaalaya okay alaabta company-ga hadaba dhaqaale ahaan sidaas ayaad ganacsi ahaan uga faa'iideysanaysaa dariiqa labaad baan rabaa haddana inaan kuu sharaxo ee company-ga uga faa'iideysanayso waa inaad fursad ganacsi oo company-gu bixinayo inaad walaalahaaga aad garanayso ee aad doonayso inay jaaniskan ka faa'iideystaan iyagana aad la wadaagto maxay qabanayaan dadkaasi sidii aad sameynayso bay sameynayaan way isdiiwaan gelinayaan qiimo dhimistii boqolkiiba 5 baa loo sameynayaa kadibna waxa weeyaan boqolkiiba 30 bay u gudbayaan ma sha Allah tabarakallah saasay hore ugu soconayaan alaabtii bay isticmaalayaan faa'iidadeedii bay arkayaan macaamiil bay samaysanayaan 30 macaamiil oo regular oo waxa weeyaan ku xidhan bay samaysanayaan saasay dhaqaale ku sameynayaan dadkaasi waxa ay company-ga ka iibiyaana adiguna commission ayaad yeelanaysaa marka maxaad sameynaysaa dadkaasi waxaad baraysaa sida ay u dhisi karaan ganacsigan oo iyaguna ay u sii korinayaan baad barinaysaa ayaad baraysaa iyaga ما شاء الله مركز تو أد برتنا ما شاء الله وحدو شرح يساسيدا كومباني جولو جارديان ويا وكوح دادي ويان وضدك كل شقيني كومباني جروب كاجي بنقانا بإذن الله كريم أديك أيانا كوه جامين يجناح سجني قف كستا وحوي بسدنا كوميشن أياد كويا لنا ساعة على شخص كومباني مركو سوقلو كوميشن أياد كويا لندون بإذن الله كريم مركا وحوي مركا درجة وهو الرئيسات بوحسو
ayaa lagu ogolaanayaa inaad adiguna dad kale ee discount-kii weynaad u gudubto ayaa lagu ogolaanayaa adiguna dad kale inaad ku soo xidho insha Allah ta'ala kombanigani waxa weeye waa kombani runtii faa'iidooyin fara badan ku leh horumar badan aad ka gaari doonto ma sha Allah tabarakallah hadaba waxa jira wax la yiraahdo 4cc 4cc oo waxa lagu kala garto qofka bishii shaqeynaya iyo qofka aan shaqeynayn bishii hadii aad 4cc samayso kombanigan wuxuu ku aqoonsanayaa qof shaqeeyay oo dadaalay inaad tahay ma sha Allah 4cc see lagu sameeyaa marka sidee baad kombaniga si abaal marino iyo faa'iidooyin fara badan oo ku siiyo sidee baad 4cc bishii ku sameyn kartaa alaabtii baad isticmaali faa'iidadeedii baad arkaysaa ma sha Allah yaani bishii bil walba alaabad u baahan tahay daawad ilkaad u baahan tahay qaybtii timaad u baahan tahay saabuuna jira waxyaabaad u baahan adigu waad isticmaali inta kalena waad sii iibin dadna waad soo gelin 4cc hadii ay isku noqdaan alaaba oo runtii wax weeyaan waad ku noqon 4cc active lagu oranaya marka hebel uu shaqeeyay ama hebelay way shaqeysay bishaas ayaa lagu oranaya insha Allah ta'ala ma sha Allah tabarakallah hadaba marka ay groupkaaga ama se teamkaagu dadaalaan iyagana waxaad ku yeelan doontaa lacag commission ama bonus ayaad ku yeelanaysaa lacagtaas ilaa waxay geedhaa 3% qof kasta oo waxa weeyaan kombaniga soo gala labadiisii si buuxiya markuu hadhow si adeegtay isaguna team sameeyo 100% yaani faa'iido ama commission ayaad iyadana ku yeelan doontaa insha Allah ta'ala hadaba waxaan doonayaa halkan inaan kugu sharaxo darajooyinka kombaniga marka aad iska duwaan geliso ku sugaya waxa jira 4 darajooyin ugu muhiimsan oo kombaniga la buuxiyaa jira darajada ugu horeysa waxa la yiraahdaa assistant supervisor baa la yiraahdaa waxaana lagu buuxiyaa 2cc 2 bilood gudaheed baad ku buuxinaysaa 2cc maxay haayeen $520 waa markaad wadankii ka adeeganayso wadanada kale insha Allah qofka warbixinta ku soo diray ayaa ku faahfaahin doona sida darajada ugu horeysa aad ku buuxinayso maxaad faa'iido doontaa darajada markaad gaadho waxaad faa'iido alaabtina ku noqoto 30% ma sha Allah oo aad ka sii faa'iidaha kadib sidee baad si ku gaadhaysaa 2cc baad ku gaadhi ama se alaab bogosa oo la qaato baa jira oo qofku uu iibsado oo alaabtaasi ay tahay $398 iyadana waad ku gaari kartaa kadib waxaad u gudbaysaa darajada supervisorka waxaad heli doontaa 38% waxaanad ku gaaraysaa waxa weeyaa tusaale ahaan haddaad adigu 4cc samayso 3 qofna aad diiwaan geliso 2 bilood gudaheed 4 qof oo 3 qof oo min 4cc ma sha Allah waxa weeyaa waa 12cc 12 bisha kale haddaad samaysaan ma sha Allah waxa weeyaan 24cc iyo 1cc aad adeegato already waxaad noqonaysaa supervisor baad noqonaysaa kadibna assistant manager iyadana 43% alaabta ku noqonaysaa kadib waxaad ku gaari kartaa iyadana ku fudud oo sida dariiqa ugu fudud ku gaari kartaa waxa weeyaan inaad adigu 4cc bishii samayso isla markaana 9 qof oo walaalahaya oo kuwii aad keentay kuway sii keeneen xataa lagu tirinayo iyagana ma garanaysaa waxa weeyaan ay 4cc sameeyaan 9 4 ku dhafo 36cc ma sha Allah 2 bilood min 36cc waa imisa walabiyo 70 adiga afarta 8 adigu geeyo 2 bilooda waa cc aad u far badan weey ma sha Allah 9 qof iyo adiga waa 10 qof min 4 4cc waa 40 iyo 40 hadii la isku geeyo waa 80cc bay noqonayaan kadib waxaad noqonaysaa manager oo ah darajada ugu dambaysa kombaniga ee la buuxiyo darajadani dhaqaale far badan baa qofka soo gala oo meesha noloshiisa kor ugu qaadi doona insha Allah ta'ala 2 bilood gudaheed ku gaari kartaa hadaad 120cc samayso 150cc na waad ku gaari kartaa alaabtu waxay ku noqonaysaa qiimo dhibis ugu dambaysay sidoo kale waxaad ku gaari kartaa ugu fudud hadii aad tusaale ahaan 14 qof aad groupkaagu ka kooban yihiin ama kooxdaad ka kooban tahay iyo adiga 15 qof atiin 2 bilood gudaheed hadaad samaysaan 4cc waad gaari kartaa kaliya hadaad tiraahdo managerka 120cc waxaan rabaa inaan iibsadana waad gaari kartaa laakiin yaani adiga iyo teamkaagu markaad wada shaqeysaan si yar oo fudud baad ku gaari kartaa forever living alaabta iyo waxa weeyaan inaad dad ku soo dirto kombaniga kaliya loogama faa'iideysto oo dhaqaale loogama sameeyo laakiin waxa jira dariiq kale oo dhaqaale looga sameeyo oo ah dariiqyada yaani dalxiiska kombaniga gawaarida iyo waxa weeyaan gawaari uu bixiyo iyo inaad kombaniga share ku yeelato oo tababarkaya insha Allah iyagana si fiican ugu qaadan doonto biidnillaahi kariim halkan oo kale waa gaariga uu kombaniga bixiyo ma sha Allah soo kale waxa weeyaan dalxiiska kombaniga sanad kasta 2 jeer baa la baxaa iyo inaad kombaniga share ku yeelato oo aad waxa weeyaan dadka faa'iidada qaybsanaya aad ka mid noqoto xaqiiq kombanigani waa kombani aad iyo aad u qiimo badan kombani dad badan noloshooda bedelay adigana noloshaada bedeli kara sababo fara badanna aad ku dooranayso tusaalaan hadii aynu sababaha aad ku dooranayso soo koobno waxa kamid ah inaad dhaqaale dheeri aad kombaniga ka samayso 200 500 200 700 800 bishii aad u baahan tahay waa meel aad ka samayn karto waa meel aad xurriyad dhaqaale aad ka samaynayso oo waxa weeyaan aad cidna u shaqeynayn qof bilaan aan u shaqeynayn waa meel aad ganacsi adigu aad iska leedahay aad samaysanayso way ganacsi in la bilaabo
wax salan ma dhaqaale fara badan buu u baahan yahay halkan waxa weeyaan dhaqaale yar oo kooban oo alaabtaad ku dalbanayso kaliya ayaad u baahan tahay laakiin wax kale uma baahnid waa meel aad waqtigaaga xor u tahay waa meel sidoo kale lagu caawin doono oo tababar lagu siin doono oo shakhsi ahaantaada awoodaada waxyaabaha kugu jira baawarkaaga lagu tusi doono insha Allah ta'ala soo kale waa meel la is caawiyo walaalo badan oo ku caawinaya aad arki doonto adigana insha Allah dad hami leedahay aad hore u socon doonto dad badan oo adduunka kala jooga meel kastana aad baran doonto saaxiib la noqon doonto wada shaqayn doontaan isgarabsan doontaan insha Allah caqabado badan oo noloshana aad wada xalin doontaan waa meel aad kula kulmi doonto waa meel noloshaada iyo mustaqbalkaaga dambe u wanaagsan oo ganacsigan haddii aad dhisto caruurtaada iyo mustaqbalkaaga dhaxal u noqonaysa haddaba walaalayaal aniga Cusmaana kana mid ah leaderska sare ama hogaamiyaasha sare top managerska masha Allah tabarakallah labadii sano ugu dambeeyayna company-ga abaalmarino waaweyn oo aad u yeed fara badan haday dalxiis noqonayso haday share noqonayso wax walba ka gaadhay isagoo waliba qurbaha jooga ganacsigana wadankii ka bilaabay masha Allah 2019 waxaan ku leeyahay company-gan waa company wanaagsan waa company la hubo waa company aad isku aamini karto waa company dhaqaale badan aan kaaga baahnayn waa company ma garanaysaa waxa weeyaan kaliya aad uga faa'iideysan karto maskaxdaada iyo aragtidaada waa company aad potentialkaaga iyo awoodaada ku soo saari karto caawimaad fara badan aan ku siin doono insha Allah ta'ala ku soo dhow company-ga insha Allah waxaan rajeynayaa wixii su'aalaha inta ka badaneed u baahatana inaad heli doonto oo laga caawin doono biidilaahi kariim oo walaalka Cusmaan waxaan ku leeyahay go'aan guli kama horeyso go'aankaad warbixinta ku qaadato waxa uu saameyn doonaa mustaqbalkaaga dhan marka insha Allah si fiican uga bogo macluumaadka alaabta iyo sawirradooda oo dhan waa lagu soo diri doonaa assalamu calaykum